Soomaaliyeey furo dhagaha indhaha furo wax fahma wallahi saan tala ma ahni miyo halka waxa idin wadaa madaxweyne xasan sheekh xalay waraysi uu siiyay telefishinka Al Jazeera halka oo la xiriiro Etoobiyaanka bad kaliya mar raba dhulka Soomaaliya inuu gogoosto uu qaato ayuu bilaaway sida ee laboorada gedo oo kale marka Soomaalida isma weydiinayaan maxay sababta isku weydiin la'ay istaraatiijiyada ama muhiimadda ku jirto gedo ee labooradeeda in hadda Etoobiyaanka uu qaato horta maxay tahay gedo maxaa ku jiro oo kheyraad ah oo Soomaalida intooda badan aysan ogeen gadaal ka falanqeyn doonaa laakiin horta marka hore hadalka madaxweynaha waa kana xasan sheekh No, Ethiopia is not only claiming the issue of the MOU only. لا تدعي بما ورد في مذكرة التفاهم بل هي تتدخل منذ سنوات طويلة في شؤون الصومال ومنذ توقيع مذكرة التفاهم تلك كل واحد مدحوينها wuxuu ku leeyahay badda kaliya ma Ethiopia dhulka qaadanaysa si toos ah madaxweynaha markii ugu horeysay ayuu cadeeyay dal dhan oo qadiyad iyo xuduud leh ee Soomaaliya la yiraahdo oo dhinac hadda si xoog ah ee uga fadhiyaan ciidamada cadow ah madaxweynaha afkiisa ka cadeeyay u jeedaan halka marka madaxweynaha wuxuu soo xasuusiyay nin Arab ah 1967 waxa dhacay dagaal Arabtii iyo Yahuudda Israa'iil dhex maray jiro Israa'iil ayaa dhul fara badan Arabtii ka qaadatay oo uu ku jiro wabiga Jordan fiiriya dhageysta wabiga Jordan iyo sidoo kale dhulkan loo yaqaano Golan Heights-ka Golan Heights-ka marka Syria ka tirsanaan jirtay hadda waxa xoog ku haysto oo dul fadhiyo oo saldhigyo military ka sameystay Yahuudda markii Yahuudda qaaradooda ay soo bandhigayaan Golan Heights-ka way ku darsadaan Syria markay qaaradooda soo bandhigayaan ayagana Golan Heights-ka dhinaca uga darsadaan in dhulkaas uu Syria ka mid yahay horta marka hore hadalka carabka idin fasaxaya waa kana الجولان أرض عربية سورية كانت وستبقى ولو وجد فيها الجيش الإسرائيلي ولنا الحق أن ندخل إليها متى نشاء ونخرج منها متى نشاء وبالطريقة التي نشاء. وكاس عرب سأجدنا دول ليهاي لوغان دول سيريا واي حوغان لو قاتي إنا قلنا ربنا إنا كسو بحنا ربنا إذا كأمر قادرين على نوع سو كله مركا على كسو هاري وحرب مقالدان iyo tusaalooyinkan idinku soo qaadana Soomaaliya inay fahantaan dad far badan oo idinka kamid ah ilaa hadda waxay leeyihiin arla Ethiopia nagu soo xadgudubto dagaalameyna ay ku jirtiin qoriga qaadana ay ku jirtaa war maxaa dagaalantaa maxaa qori qaadataa Soomaaliya dhulkii waa la qaatay waqti xaadirka muuqaalka adaawanaysid fiiri muuqaal mujada mapkan ila fiiri mapkan waxa u jeedaa weliga ma maqashay luuq ganaane ee boorka dhulkaas ku yaalo gedo waxa maanta fadhiyo oo xoog ku haysto ciidamada Etoobiyaanka ah dhulkaas maxaa maro qariirada ila fiiri Soomaaliya laba wabi oo qurux badan wabiga Juba iyo wabiga Shabeelle oo ku faano laakiin dhankan Ethiopia ka yimaado aan soo dhaxmar Soomaa Etoobiyaanka wabigii Juba dhinacyadu ka degay asaga iyo Masar horta waxay isku haystaan waa wabiga Niil waa wabi ballaaran oo weyn badan waa wabiga Niil iyo Jubooyinka wabiga Juba leesma agdhigi karo iyo wabiga Shabeelle leesma agdhigi karo waa sax laakiin maanta waxaa socdo dagaalka kheyraadka iyo dagaalka biyaha ayaa socday Ethiopia waa hunguri weyn tahay oo waxay aaminsan tahay in dhaqaalaheeda iyo awoodeeda ay waa iga si MC Abiy Ahmed oo sidoo aaminsan yahay marka biyo yar xitaa meel ku jiro ninkaas inuu xoog ku qaato rabaa marka wabigan fiiri elaboorka sida u jeedaan gabi ahaantiisa waxa ku heeraarsan wabiga Juba ayaa ku heeraarsan wabigaas hadda waxaa asoo Soomaaliya dhex yaalo ayaa Etoobiyaanku wuxuu rabaa inuu control dhigeysta waxa rabaa hadalkaas inay dhigeysataan wabigi anaga aan lahayn oo dhulkeena ku yaalay ayuu Etoobiyaanka qabsaday hadda si toos ah sax ah idinku sheego saas waay hadda diidanta adiga bal soo qor laba wabi waxa jirto oo Turkiga ka soo baxdo fiiriya qisaan yaab kale oo waliba isku eg ila fiiri ilaan Etoobiyaanka wuxuu yaqaanaa playbook inuu buuga kale uu soo akhristo uu anaga nala imaado ayuu bartay Turkiga war waxa ka soo baxo Turkiga laba wabi oo taariikhda Islaamka ku barateen dadka taariikhda Islaamka soo bartay Euphrates iyo Tigris labadan wabi ma taqaana si u jeedaan qariirada labadan wabi waxay ka soo baxaan Turkiga ka soo baxaan waxay toos u galaan labada dal Iraq iyo Syria ay toos u galaan markii kacdoonkii uu dhulkaas ka bilowday dagaaladii duulaankii qaabnaay iyo adiga markii la bilaaway Carabtii in Yahuudda iyo Mareykanka iyo Yurub lagu goobto dhulkooda la qaato markay bilaawatay Turkiga muxuu sameeyay wuu durqay gudaha Syria iyo gudaha Iraq intuu dhex galay
ayaa turkiga wuxuu bilaabay waa daldadow gudihiisa waxaan kulli muslimna isleeyahay fahma sheekada muslim gaal kuma saabsano meeshaan isgaadgaad kale oo waxaan ka weynaa jiro qeyraadaa lagu dagaalamaa dhulaa lagu dagaalamaa marka turkigii webigan Euphrates iyo maxaa la dhihi jiray Tigris oo asaga ka soo baxo inta ku soo yaraadeen ayuu soo baxay Iraq iyo Syria soo dhaxgalay meeshaas oo wuxuu ka dhistay dams waaweyn sida kan Ethioopiaanka uu ka dhistay webigan Nile oo kale intaas horta waa ila fahanteen ayaan u maleynayaa ka gudub nagu soo celi gobolka Gedo maxaa ku taqaanaa uu caan ku yahay fiiri weligaa ma maqashay wax loo yaqaan Jurassic rocks dhagxaantan Jurassic loo yaqaan adduunka way raadiyaan waxaa lagu leeyahay dhegeysta Jurassic rocks gedaysaas ka yihiin gobolka Gedo ayay ka buuxaan dhulkaas ee dadka ka baahan yihiin ee gaajada ku dhimanayaan hoostiisa Jurassic rocks kaas iyo waxa kale oo ku jiro limestone rocks ku loo yaqaan Jurassic rocks waxa kaaga daran saliidan badda gudaheeda hadda waa laga faagaa leeyahay ayaa waxa ka dhaxeli kartaa Jurassic rocks kaas waa dhagax caadi ah oo haddii farsamadii aad taqaanid saliid aad kala dhex bixi kartid oil iyo natural gas fahma Gedo waxay kaloo caan ku tahay dhagaxaan loo yaqaano limestone Ethioopiaanka waa ogyahay waxa kaaga sii daran Ethioopiaanka Europeaanka waa ogyihiin 1800 iyo 900 waa 1800 yaa 1900 xitaa lama gaarin ayay Gedo baaris ka wadeen Europeaanka dhagaxaantan inay Gedo ku jiraan way soo ogaadeen dhagaxaanta maxaa laga sameeyaa gurigan Elfeeri gurigan kale Elfeeri labadan guri hadda aragteen mid waa Jarmal midka kalena waa Kenya waay labadaas guri hadda